ninka Cabbaas Madani waa taqaan Jarmal ku joogaa waxa dhalay Salman Dheere isagoo la socda aabihiis dilay madaxweyne Madisho u garan karay wixii waxa aabihiis dilay ma sheegayo ma yarkan midiyaha ku jira kan yara midiyaha ku jira way aara wuxuu ahaa ninka inaadeerkii laxmiya oo gaandari ah ka careebo ah hada fiiri waa taariikh weey markuu inaadeerkii meedkiisa qaadan kar waayay hada fiiri ayuu niman odayaal oo bahar sama oo waxaan ka xasuustay in la yiraahdo caga weyn oo bahar sama reer nuura ayuu isku duubay abtiyo badbaadiye ciidankii habariyoonis buutoos wala soo hadlay markaasay u sheegeen Faysal Cabdimatan gaari ambalaasa oo cad inuu ku haystay oo ciidankan ka leexday anigana asal ninka burburi aniga weeyii cid ay eersanaysa ma harti ma aha oo wallahi harti ma aha oo wallahi cid kale ma aha aniga muuqaalkan isgaarsiiya caarana iga gaarsiiyo jawaab waafiya ayaan siinaya insha Allah taala arrimaha uu ka hadlay haday tahay aniga iyo arrimaha familkayga iyo waxyaabaha uu taabtay Allah uu naxariista aabaha iyo arrimo badan buu ka hadlay waxaan rabaa inaad gaarsiisaan isagana gaarsiiyo iyo doorna gaarsiiyo horta caare waxaan leeyahay horta cadowga oo ku caaya duu ku amaanay horta marka koowaad aniga aabahay Allah uu naxariisto Cornel Salaban Chama Xaaji Ciise Gadle nin la yaqaan oo muctarima oo dadku ay wada garanayaan reer SSC Khaatuman miisaan weyn ayuu ahaa udub dhaxaadkii SSC Khaatumo haday tahay wax barashadeeda oo magaalada caasimadda Laas Ano dadkii waxa weeye salka u dhigay wax barashada magaaladaasi xilligii burburka Soomaaliya ayuu ahaa wuxuu kamid ahaa raggii Laas Ano lagu laayay ee madaxa loo duubtay 150 ayay ku dhow yihiin raggaasi waxa madaxa u duubtay caarahan hadda hadlaya iyo iidoor shabada argagixisada khawaarijta islam bilaash uma oran magaca uma bixin argagixiso madaxa duubata dadku waxay u yaqaanaan kaliya argagixisada nimanka kale yaryarka laakiin argagixisada caalamiga ah waa nimanka weey aabahay wuxuu dhintay 2010 waxaan waxa ka horeeyay Allah uu naxariisay suxufi ninkii labaad buu ahaa baaris aan sameynay dheeri ah ilaa suxufi ilaa iyo hadraawi ugu dambeeyay baarista aan sameynay waxay ahayd baaris ku qotonta xeeldheerayaal arrimaha surdoonka dhammaan arintaas waxay galeen nimanka gobolkoodu dhacay argagixisada islam nasiib wanaag waqti dheer ha ka soo wareegto laakiin maanta kale inaan ka hadlo waxaan isleeyahay maalinta ugu habooneed 150 kaas ayuu aabahay kamid ahaa ilaahay uu naxariisto dhamaantood maanta ciil uma qabno kuwii falalka argagixiso fuliyay dhamaantood waa naga hooseeyaan afraad mid oo caar kamid ah halay kuwaana maalin ay noqotoba waajibaadkooda oo marinayna alxamdulillah raggii falka argagixiso geystay weerarkaasi maanta midna xabsi ugu jira oo sida ariga ugu xareysan yahay xabsiyada Laas Anood hada fiiri kuwa ciide hoos mareen oo 5,000 abaf ah ninkii ka dambeeyay aniga weeyay caaro xisaabta ku darso jabhada asnab ninka qaawiyay ee soo afjaray ee adduunka meel walba ka soo xuray ee waxa ciidankoodu waxa weey burburiyay ee waxay qaran ku sheegayeen dhowr iyo 30 sano wiilka hamka siiyay aniga weey ciilo maanta uma qabo aniga iyo intii kale ee ka geeriyooday familiyadii 150 kaas raggaasuna aabahay kamid ah Allah uu naxariisto dhamaantood cidii falka argagixiso geysatayna maanta ciilo uma qabno qaar gacanta noogu jiraan weli raggii ugu waaweynaa hada fiiri wana ciid hoos mareen oo nidaamkii asnam ha in afka ciid loo daro oo aan gabagabeeyo horta wiilka ka dambeeyo waa Cabbaas Madani weeye ee magaciisa sida tusbaxa waa haysta Cabbaas Madani aniga aabahay iyo ninkasto reer SSC Khaatuma idoo nidaamkii deegaanka xukumayay waa ku dhici kara weeyaan si bareera waxa weeye aad falal argagixisa u fulisaan nasiib daro waxa
inaad madaxa duubataan idinku nidaamkani meesha ka shaqeynayay oo aad waxa weeye iliidkii dadka reer SSC qaatumo aad madaxa duubataan horta sidaasaynu kala nahay anu maanta dad Burco maamul lahaa de waxa weeye 1988kii iyo 19 waxa weeye 80gii iyo waxa weeye dawladda tasibir burisay Burco iyo Berbera dhulkaana maamulsay saa doonana ka yeeri jiray dareera cad baheed saraakiishoodu ka yeeri jireen idinku tima sameyseen ma sameyn kareyseen waa may way ma aydan sameyn karin laakiin idinku waxaad kaga duwaneedeen gacan gadaal ka baqaysaad haydeere waxaad sameyseen weeraro argagixiso oo madax duuba baa dadkii reer SSC markaas laas aan ku sugnaa aad ku leyseen laakiin ma mahadiseen waa may way ciidankiina burburiyay maxaabiista ugu badnaa caawa ka hayo saraakiishii foolaadka u ahaa maanta aniga sida ariga xerada ugu xareysan yihiin horta intaas ka dhaxashay magacan caare ee ku baxay dadku ma yaqaanaan waxay la tahay Soomaalida kale inaan garan iyo doorkuba adan idin sheegaya ninka horta caare wuxuu kula baxay fulayniyo noole ka fulaysan hooyadii ma dhalin 1988kii ciidan xoogan oo fardatan la oran jiray oo dhul bahanta kooxo ka soo horjeeday dawladda dhexe Soomaaliya jamhuuriyadda dimuqraadiga ahayd baa meelaha gaadiidka jidka u gali jirtay ciidan uu marka caare ku jiro ayaa ciidamadii fardatan is heleen ciidamadiisi waa ka cararay markii ciidamadii la cayrsaday oo qayb la qabtay qaybna la laayay oo waxa weeye haanta horba laga dhigay caare wuxuu galay Godofar buu galay Godofar meel la yiraahdo boqol iyo xudud dhaxaysa Godofar ku yaalo galay waana meesha lagu guri halka weey meesha uu kula baxay caarana waa halka weey fuleynimo kula bax qisa kale waa idin sheegay waxyaabo bahar sabada ku haysto waxa kamid ah reerka aan ka dhashay Maxamed Garaad ninka walba jugta gaadhama ilaawo jug baa ka gaadhay meel la yiraahdo degmada Kalabeed xilliga wuxuu hogaaminay ciidankii argagixisada ee waxa weeye ka dhax shaqeynaysa beelo walaala ah oo hadda la yiraahdo Baxkhayr magaalada Kalabeed nin la yiraahdo Anjama God oo maayarka hadda degmada Kalabeed ayuu weerar ku soo qaaday xilli duhuradii Kalabeed 15 wiil iyo isagoo wata laba qabaal halkaas isku afdhaafeen waqtiga nidaamka argagixisada deegaanka ka talinayay maalinta wixii ku dhacay waxaanu arag oo aan maqal ayaa ku dhacay futo dhig la kala tagay gacan jaamac good bay saf dhaafeen waa ku xoreeyaa buu ku yiri warima xiri kartid buu yiri qoryaal ay soo cabaystay 15 wiil waxa weeye bahar samee waxa weeye gacan la joogay qoryaha cabaysteen isagoo laba qabaal bisatay dhulka la isku dhigay xabadii ugu horeysay in adeerkii ku dhacday oo gaandhari ah dhulka ulama dhicin kala luuq u dhawaysay qori cabayso isagana dhulka ulama dhicin waa lagu cibaadaystay caara wuxuu ahaa ninka in adeerkii laxmiya oo gaandhari ah ka careebo ah hada fiiri waa taariikh weey markuu in adeerkii meedkiisa qaadan kar waayay hada fiiri ayuu niman odayaal oo bahar samaa oo waxaan ka xasuustay in la yiraahdo cagaw inuu bahar samaa reer nuura ayuu isku duubay abtiyo badbaadiye ha horta caara waa ka weeyay in adeerkii laxmiya oo gaandhariga u ahaana dhulka lama dhicin meedkiisa meesha uu kaga cararay maalintaas carra bahar samaa ugu dambeysay dhig la ayuu kala tagay marka daba ka mucaaradka noqon doona qarna tagi doona wuxuu ku ilaaw waayay reerka bahar samaa la yiraahdo taas weey xanuunkaas ay gaarsiiyeen waxa weey waa dhalfeeyeen arrin kale waa idin sheegaya caare marka laga yimaado inta cirro jabhada argagixisada SNM xukunkooda ku guuleystay sanadkii 2023 iyo 24kiiba shaqo weyn buu hayay hartiga cidda soo basaasi jirtay ciidanka dacda idin sheegaya isagu ma oga ma maqal jirteen caara martay goobtaade intii dagaalka ka socday caara wuxuu toos ula xiriiray saraakiisha SSC xogaha saanada tirada ciidankooda caara wuxuu ninkii update-kaas uu soo gudbinayay buu hadda wuxuu iska dhigayaa nin balaa oo waxa weey generaal oo walaaho
maalintii 25kii August ciidankii qabtay Faysal Cabdi Bootaan xogtana qaat